بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا على ما تحب وترضى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan waan salaamaya qof kasta fiidiyogan daawanaya maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay Google Play Store ayaynu cilad bixin doonaa Google Play Store waxaa dhacdaa alaaba inuu mararka qaar ku yiraahdo hal cilad uu leeyahay waxaynu ku noolnahay inagu dunida saddexaad Afrika oo kale dadka jooga dunida saddexaad baynu ku noolnahay marka waxyaabaha qaar inooma ogolaanayaan inuu isticmaalno oo IP addresskeena ayaa dunida saddexaad ku safgaraysan marka IP addresskeena ayaynu bedeli doonaa ka dhigan doonaa North America ama Europe ama wadamada horumaray first world la yiraahdo dunida koowaad Europe iyo meelaha lamid ah bal hadda hal waxaan ku tijaabin doonaa wata mushkiladu markaas tiraahdo waxyaabaha qaar samayso xagga ay yar wada aragtaan farteedu marmarayso wuxuu ku leeyahay this item is not available in your country itemkan ama waxaan aad doonayso lagama heli karo wadankaaga ayuu soo qoray sidoo aragtaan mushkiladaas xalin doonaa runtii dad badan carqalad ku ah marka qaarna application aad u qiimo badan oo soo dejisan leed ama program aad updating ku samayn leed ama system software ka updating ku soo waxyaabo aad u tiro badan ay ka hor qabsanaysaa oo ku oranaya wadankaaga lagama helayo waayo IP addresskeenu waa Soomaaliya ama East Africa ama Africa oo gabigeeduba dunida saddexaad oo wadamada horumaray bay u ogoliyeen inay sii daayaan marka mushkiladaas aynu xalin doonaa maanta marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay si aad u xaliso inaad Google Play Store kaaga soo furto Google Play Store kaaga soo furto searching garee waxaad searching gareynaysaa Cloud VPN ba searching gareynaysaa waxa ugu sareeya Cloud VPN free unlimited data ku taalo ugu sareeya aad ku dhufanaysaa marka xaga install buu ku soo qoray aniga open igu qorantay already ani mobilkayga ku jira marka aadna soo dirsanaysaa barnaamijka marka soo dejisato Google Play Store kaaga oo masaxaysaa setting-gaaga horta tagaysaa application manager ka tagaysaa ama app manager ka application manager kaaga markuu saan oo kale soo furmo waxaad ka baaraysaa Google Play Store aad baaraysaa oo helnaa kan Google Play Store ku dhufanaysaa Google Play Store markuu saas kale kugu soo baxo clear data baad ku dhufanaysaa okay wala hadda wuu diyaarsan yahay iskaga soo wada noqonaysaa application-ka aynu soo dejisanay baan furi doonaa san ugu shaqeyno application-ka aynu soo kala doonaa Cloud VPN application-ka markuu saas kala soo baxo waxaad taabanaysaa meesha yar ee ku sawirantay globe-ka qaaradda yar ee taabanaysaa globe-ka aad ku dhufanaysaa deetana waxaad ka dooranaysaa waxaan wadan oo dooran karaysaa laakiin United States ama United Kingdom labadaas ugu fiican dooran si waayo United States waa wadan horumaray wadanka Mareykanka waa wadan aad u horumaray marka hadalku ugu soo celinaayo jadadu qaadanaya United States baan doortay marka meesha yar dhaxan taabanaya tap to connect buu taabasada fiirsan taabtay connecting buu leeyahay your connector successfully hadda si fiican buu connect garoobay aan ka soo wada noqonayaa marka application bay furan xakan dhexe waxaan iska xirayaa Play Store ka xakan dhexe ka furnaa deetana Play Store ka baan hadda soo kicin doonaa Play Store ka hadda soo kici doonaa
accept baad leedahay. Waka hadda Play Store USA ayaan isticmaalaynaa, waad aragtaa. Play Store-kii hore iyo kan isku midba maaha. Kan waxyaabo kale waxyaabo tiro badan baad ka heli karaysaa oo aad u tiro badan. kan kii hore la mid maaha oo waxyaabo badan buu kaga duwan yahay. kan macna news buu leeyahay, updates buu leeyahay, aad u advanced ah. waxyaabo aad u badan buu aad u tiro badan buu leeyahay oo runtii aad ku anfici doona oonu kii hore lahayn. kii hore waayo limited buu ku jiray, xadid buu lahaa, laakiin kan xadid ma leh. wax kasta ayaad ka download garaysan karaysaa, wax kastana waad ka helaysaa si yar oo fudud. bal hadda waxaynu eegi doonaa application-kii uu inoo diiday inuu inoo soo waxeeyo lahaa not available in your country ayaynu eegi doonaa. bal hadda meeshii hadda waa inaan kusoo noqonay upgrade banner. Google Play Store buu automatically igu tuuri doonaa. hadda sidoo aragtaan toos buu geeyey not available in your country meesha ay ku qornayd way baaba'day. sidoo aragtaan waa Google Play USA aan isticmaalaya hadda. xitaa wuxuu soo saaray lacag $2.99 $3 lacag ku dhowdhowday. waxaa ka dhiman hal filis ayaad ku iibsan karaysaa buu leeyahay. markii hore waayo iimuhu soo saaray wadankaaga lagama heli karayo la, laakiin hadda lacag buu soo saaray waayo wadan horumaray weeyaan. credit card la isticmaalayo, applicationska xitaa Google Play laga iibsanayo. wadaas sidoo aragtaan hadda haddaan ku dhufto credit card buu weydiin doonaa san uu isticmaalaan uu soo upgrade gareeyo. waxaan rajeynaya inaad fahanteen. wixii su-aala ama comments waxaad igu dhaafi karaysaan commentiga hoose. channelkaygana subscribe gareeya. youtube-ka channelkan ku leeyahay farxaan xasana. warqada yarna si fiican u akhriya. warqada yar oo bay farxaan dilbaca soo diyaariyey. waad ku mahadsantihiin inaad daawataan videogana share gareeya. waxaanaad igala soo xiriiri karaysaa facebookayga farxaan xasan ama channelkayga aan ku leeyahay youtube-ka. subscribe garee farxaan xasan. aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada tv-ga iyo waqtigiina aad u horteen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.